Asalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay meel kasta oo aad joogtaan. Waxaan ka hadli doonaa kulankii weynaa ee soo dhex maray Liverpool iyo Bayer Leverkusen. Kulanka falanqayntiisa intaan gaarin waxaan kaa codsanayaa marka hore inaad ku soo biirto oo ka mid noqoto haweynta halkan aan ku saaxiibnay. Kulanku wuxuu ahaa kulan weyn oo aad u xiiso badnaan. Xavi Alonso halkan waa lagu soo dhaweeyey, hase ahaatee waxa uu filayay iyo waxa ku dhacay laba ayay kala ahaayeen. Half time-kii hore ciyaartu markay bilaabatay 20 daqiiqo ee ugu horeysay, Xavi Alonso mid dhulka isku garaaca ayuu ahaa, hase ahaatee Bayer Leverkusen waxay soo bandhigtay 20 daqiiqo ee kubadda ugu horeysay baas waliya, taas oo 108 jeer ku dul baasatay, halka Liverpool 60 jeer ay baasatay 20 daqiiqo ee ugu horeysay. hase ahaatee Liverpool half time-kii intaan la gaarin, Liverpool kubadda ayay la wareegtay, taasoo markasta weeraraysay Bayer Leverkusen markii ay Chance heshaba. Waxay socotay kulanku half time ayaa lagu aaday iyadoo Liverpool position-ka laga sito. hase ahaatee wax walba waxay isbedeleen half time-kii markii laga soo laabtay. sidii la filayay, Liverpool waxaa lagu yaqaanaa oo dabeecad u ah marka ay Anfield ku ciyaarayso half time-ka dambe bay goolasha ugu badan dhalisaa, taasoo pressure saarta kooxda kale. Marka ay 2 gool 3 gool ka dhaliso, waxay bilowdaa haysashada kubadda inay kubadda kala wareegto kadibna waqti dhumis ay samayso. hase ahaatee Liverpool daqiiqadii 61aad Diaz ayaa dhaliyay, Jones ayaa kubad ku xaday difaaca Bayer Leverkusen, kaasoo Luis Diaz inta ka dhex baxay kubad aad u qurux badnayd. si kale uma taqaanid kubaddii Messi ayuu dhaliyay, taasoo Liverpool hoggaanka u qabatay. gooshaas quruxdeeda xitaa Arne Slot ayaa gacmaha madaxa saartay. waxay ahayd fag yar ah oo laga dulqaaday Portieriga, tartiibna ugu degatay goosha. halkaas ayay Liverpool hoggaanka ka qabatay. hase ahaatee 2 daqiiqo kadib, daqiiqadii 63aad, Salah ayaa cross soo qaaday, taasoo Gori Gakpo Just ku dharbaaxay. Offside ayaa la yiri, laakiin checking-kii markii la fiiriyay waxay noqotay gool maadaama Bayer uu ku jiray Bayer Leverkusen meesha. waxay socotaba Bayer Leverkusen kubadda waa ay ku warwareegtay, hase ahaatee wax gool ah way dhali weyday. Kelleher ayaa kubadda aad u difaacanayay, kaas oo Alisson caawi isku bedelay, safety-sana laga yaabay. 83 daqiiqo markii ay maraysay, Diaz ayaa mid kale ku shubay, taas oo Mohamed Salah isla cross uu keenay ahayd, oo ciyaarta 3 gool aan ka eber u bedeshay. Xavi Alonso waa iska fariistay maadaama wax uu ka qaban karaa aysan jirin. hase ahaatee Darwin Núñez oo bedel ku soo galay ayaa 2 Chance oo Diaz uu sii karay khasaariyey. hase ahaatee Diaz 92 daqiiqo markii ay maraysay ayuu gooshi kale oo Darwin Núñez oo rabo inuu shuudo kufay uu ka qaatay, kadibna uu dhaliyay. sidaas ayuuna caawa hat-trick-giisii ugu horeeyay Liverpool iyo champion uu ka dhaliyo ku gaaray. Liverpool waxay ciyaaraysay geemkii afraad ee championka, kaas oo Arne Slot 4 si nadiif ah u soo badiyay. Arne Slot waxa uu noqday macallinkii labaad ee badiya 4 kulan ee championka ugu horeysa taariikhda Liverpool. macallimiintii soo baray markii laga reebo Klopp oo asna sameeyay 2021 iyo 2022. hase ahaatee madaxdiirkan waa uu waalayaa reer Liverpool sidii ay ka filayeen, si 1000 jeer ka fiican ayuu u noqday. haddaba Xavi Alonso markii half time-ka la aaday waxa uu sameeyay meesha magaca Anfield ku qoran yahay ee garoonka laga soo galo ayuu soo taabtay. kaamirooyinka ayaa duubayay, hase ahaatee geedkii oo cuskaday oo la jabay oo wax ka awood sareysa ayuu u imaaday. Liverpool waxay leeyihiin sorry Xavi Alonso, saan uma qalatid, hase ahaatee waan rabnay inaan guuleysano oo hadda waxaan ku qaban karnaa ayaa iska yar. runtii Xavi Alonso isagu madaxiisa hooseeyo ayuu meesha ka soo baxay, sababtoo ah waxa uu rabay inuu badiyo, laakiin uma suurtagelin. hambalyo reer Liverpool, waxaad gaarteen guul cajiib ah taasoo ka caawin karta
inaad ku guulaysataan championka. dhammaantiin waa mahadsantihiin. mar kale waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaray inaad ku soo biirto bahweynta aan halkan ku saaxiibnay. mahadsanidin.